soo dhawaada daawadayaal halka aan nagala socotaan warbaahinta Chase Media iyo anigoo ah Ismaaciil Xirsi Cigaal waxaan idin leenahay ku soo dhawow qodobada wararka aanu idin hayno waxaa kamid ah afhayeenka ciidanka SSB awil siyaarag oo sinaba aanay uga suuro gelin nabadgelyo ka dhacda isaga iyo dhulbahante dhexdooda mana aanay suuro gelin islaama ka soo boqolay magaalada Buuhoodle oo deeq raashin iyo isugu jirta xoolo nool soo gaarsiiyay jabhadda Khaatumo ee ku sugan magaalada Yiile xaaladda jiidaha hore oo caawa ilaa fiidkii intii ka horeysay 12 ku sugnayd xaalad 90% lana fili karo aroorta inuu dagaal ka dhaco ama halka ka qarxo soo dhawaada subscribe dha YouTube haddaad hore ila joogin share garee barnaamijkan waayahay aan ku horeeyay afhayeenka jabhadda SSB ama ciidanka madaniga ox ku dhaar ka maray ama ka magan galay Ilaahay in aanay ka suuro galay wax nabadgelyahay isaga iyo dhulbahante dhexdooda waxaan idin ballan qaaday haddii isaaqo dhamiidin la heshiiyo soo afhayeenkii guud ee isaaqmi haddii isaaqo dhamiidin la heshiiyo haddii habar jeclo dhamiidin la heshiiso ifka intaan ku haddii xukuumadda Soomaaliland idin la heshiiso ifka intaan ku noolahay inaana weligeed idin la heshiin ilaahay baa ka marxaatiya waa rabadaan waan soomana ilaahay oo rabbiga oo maalin jimcaay ahayd maalintan ku wili kuwa anigu waayahay isagoo halka markaa shakhsiyan buu kaga hadlay horana wuu uga hadlay nabadgeliyo ka dhacaysa halka isaga iyo dhulbahante dhexdoodana wax suuro gelaya ma aha waa sidoo hadalka u dhigay haddaba sababta ay u suuro geli laadahay nabadgelyadaasi shakhsiyadiisa maxaynu ku qeexi karnaa committee-ga nagula waraagaysa maxaynu qof waliba cabirkiisa iyo aragtidiisa ayuu ka dhiiban karaa waxaana weeye wax maanta ka shaqeynayo oo u fadhiyo qaar ka soo horjeedaan weeyaan nabadgelyadani ma jiro si toos ah qof colaad u raadinaya oo si toos ah uga howlgelaya waxaase jira qof waliba inuu nabadgelyana raadinayo colaadana in lagu kalifay isagu sheegayo waxaase jira rag aan weli ka qowsan nabadgelyada haddana wada fadhiya si ay u suuro gelin lahaayeen furayaashii nabadgelyada waayahay bal haddaba jiha kasta oo laga eego afhayeenku qaabka uu ugu dhawaaqay inaanay nabadgelyo jirin ma aha si caam ah waxa weeye qaab shakhsiyadiisa ku kooban oo uu kaga magan galay oo Ilaahay marxaati ku gashaday oo uu sheegay intuu nool yahayba waxse ayna garanayn inta uu noolaan doonaba taa markaynu ka nimaadna afhayeenka qof kastaba cabirkiisa isaga ka dhiibanaya committee-ga nagula wadaagi doontaan waanaanu idin la shaqaynaynaa qaabka u soo falcelisaan waa loo qiimeynayaa qof kasta qodobka labaad ee aynu u gudbaynaa waxa weeye xaaladda jiidaha hore oo caawa 90% ku sugnayd xogaha naga soo gaarayay waxa kamid ahaa in ciidankii SSC Khaatumo uu shalay si iskiya galabnimadkii dib ugu faarumaystay magaalada Yeelena deegaan ka dhigtay una hoyday caawa halka ay ciidankii qaranka ama kii madaniguna hore u guureen halkii ay ka guureen deegaamaysteen una hoydeen caawa halkaasoo nin waliba gaashaankiisa ku jeeni qaaran yahay si 100% la fili karo aroorta halka in ay wax ka dhacaan Ilaahay haynaga haya waxaa jira markaa qof kastaaba nabadda iyo colaadda ku jecel yahay naftiisa runta u sheega markuu kaliya qof ilama aha si toos ah colaad u raadiya waayahay adiguna cabirkaaga dib wad ka dhiiban kartaa kaad rabtaba waxaa jira waxyaabaha baraha bulshada la geliyo dhammaantood waa faatabakh iyo qof jecel in la daawado balse laakiin qofku shakhsiyadiisa kama suuro gasho inuu colaad raadiyo horta isagu sideedaba waxa markaa halka muuqanaysa dad dhinac walba jooga oo carinaya oo dani ugu jirto maalinta ay nabadgelyo dhacdana aan iyaga dani ugu jirin masiirka reerka iyo meesha uu taliyo meeshu jooga toona waxa kale oo jira nin jabhada iyo nin deegaana iyo nin xoolo dhaqataa
dhammaantood waxaa jira wax aan shakhsiyad kuba xidhnaynba. markaad sidaa u eegto dagaal kasta oo dhaca yaa go'aamiya. marka uu dhaco qolo waliba waxay tiraa waa nala soo weeraray, waa nala dulmiyey, waxbaa nalaga qaaday. marka laga reebo in farku tiriso oo aan caddayn loo raadinayn sida idihii lagu soo duulay oo kale, kuwaas caddayn uma baahna, ciddii weerarka lahaydna waa la iska garanayaa. balse laakiin waxaa jira weeraro badan oo marka ay dhacaan qof waliba qofka kale ku cambaareeyo, markaa jahwareer iyo khalkhal ka yimaado bulshada dhexdoodii, taas oo aan qofna xaqiijin karin dhinaca duulaankaasi ka yimid. markaad sidaa u eegto waxaa jira in qof keliya ay dagaal ridi karo, balse nabadgelyada wax lagu raago ay noqoto. taas waynu wada xaqiiqsannahay. hal shakhsi wuu ridi karaa dagaalka, waanu ku guulaysan karaa inuu rido, laakiin nabadgelyadeeda cidda baadi dooni kartaa way ka fara badan tahay qof. waqtiga lagu raadiyo nabadgelyaduna wuu ka dheeryahay waqtigaa. waxaa markaa kuu muuqanaysaa dadka dagaalamaya ama jiidaha ku sugan dhinac kasta ha ka soo jeedaan wax hadafah oo iminka lagu dagaalami karo ama wax farku taabashalay inaanu jirinba. sababtu tahay qolo kaste haddii mikrofoonka la hordhigo oo la waraysto oo la yidhaaho xaggaad doonaysaa inaad gaadho, maxaa kaa maqane aad doonanaysaa, qof odhan kara dhul baa iga maqan, magaalaa iga maqan, waxbaa layga haystaa, hantibaa iga maqan, wax macnaha lagu garnaqsan karo oo farku taabashalay inaanu jirin qof kasta waa u caddahay. qofkuna wuxuu runta isu sheegaa markuu keligii yahay ee isla foqo. ka dhulbahantee iyo ka habar jeclaba nin maanta odhanaya waxaasaa iga maqan oo aana dagaal uga baaqsanayn maba jiraba. qodobkaa haddii aynu halkaa kaga gudubno, dagaalka waa laga dhirigsan yahay. qaabku u dhacana waxaynu iminka halkan faalideeda ka bilownay maaha, waa wax kii kasta ee dhacaba la faalayn karo. mar kale waxaan kaa codsanayaa daawada inaad subscribe tidhaaho, barnaamijka sheer garayso, haddii aad aragti qabtana commentiga nagula wadaagto. caadifada iyo cayayadu way reebtan tahay, laakiin mid nadiifa baan doonay inaad soo qortaan dhammaantiinba. daaroda isaa ka doonta ahaw. qodobka saddexaad ee xasaasiga aynu gudbaynaa waxa weeye islaamo ka soo boqolay magaalada Buuhoodle oo soo gaarsiiyey deeq kala duwan, xoolo nool iyo raashin magaalada Yeele oo ay ku sugan yihiin ciidankii ICC-da ama khaatumada. waayahay maxay ahaay magaariyaal badan? waa maya, iskurugo shaambooya iyo in ariya oo farkutirisa iyo in raashina laga soo rogay. islaamahaasi ujeeddada ay lahaayeen waa in ay ku dhiirigeliyaan ciidanka oo ku dagaalgeliyaan oo ay ku deegaameeyaan si aanay uga iman baahiyaadkooda gaarka meesha ay joogaan. waayahay islaamahaasi waxay sheegeen inay urur ahaayeen, in ay urur ahaan raashinkan ku keeneen. si kastaba ha ahaatee si milgale ayay isu soo abaabuleen. cid la wadaagtay oo ka gacan siisayna may sheegin. hay-adday hay-ad tahay iyo haddii ay ganacsato tahay, cid markaa raashinkaa ka gacan siisay may sheegin. markaa waxa halkaa ka muuqatay raashinkaasi ujeeddada uu leeyahay waa in lagu taageero dagaal iyo dhiirigelin jiidda horaa. muxuu noqon karaa haddaba qof kastaa markuu wixiisa bixiyo? ma ajar buu ilaahay kaga doonaa? ma cid kaleu sumcad kaga doonaa? qof kastaaba horta isagaa doorta wixiisa sida uu u bixinayo. waxaana u cad oo aan ka qarsoonayn wax kasta waxa loogu bedeli doono markuu aakhiro tago. waayahay halkaa waxaa muuqata dagaal rag iyo dumar aan loo kala harin oo laysku taageersan yahay, waana sida dee lala doonayaba. hadduu qofku qofkiisa taageero waa meesheeda, laakiin raashinkaa iyo hantidaa iyo deeqdaa ay bixiyeen aakhiro waa bil Ramadaan. aakhiro maxaa uga imanaya? waxa dhaanta fikradeyda iyagoo agoomihii aabbayaashood dagaaladan ku dhinteen iyagoo u qaybiya waqtigaa Ramadaanta ajar iyo xasanaad iyo farxad ayay kala kulmi lahaan. balse laakiin maanta ajar iyo abaal loogu hayaana ma jirto. qof waajibkiisii gudanaya baa loo arka. cid haddii eebbaydankeeda leeyahay ku ammaani doontaana wayba iska yar tahayba. aakhirana
waxa weeye in ay uga noqotaba furaha cadaabta lagu galaba dhici karta sababtu tahay qof dagaal ku bixiya hantidiisa iyo dhiig daadanaya oo islaam dee waad iska garanaysaa qof waliba qofka aan xaafidul qur-aanka iyo ka yaqaan war waan salaamayaa dhammaantiin sheer gareeya barnaamijka oo mar kale subscribe haddii aad imika igu soo birtay haddaad hore ila joogtay